madax dhaqameedka cuqaasha salaadiinta waxgaradka iyo aqoon-yahanka beesha galbeedka gobolka Sanaag oo habeennimadii xalay kulan ballaaran ku yeeshay hoolka Mahuraan ee magaalada Ceerigaabo ayaa waxa ay si adag uga hadleen xilliga uu qabsoomayo shirka beeshaasi u ballansan tahay ee lagu qabanayo degmada Ceerigaabo kaasi oo ay sheegeen inuu qabsoomi doono ka hor doorashada madaxtinimada Somaliland ee sanadkan dabayaaqadiisa la filayo inay qabsoonto cuqaasha iyo madax dhaqameedkani waxay kale xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ugu baaqeen in ay ka daayaan faragelinta isla markaasina faraha kala baxaan shirka beeshaasi qabsanayso ee ay danahooda reer ahaaneed kaga wada hadlayaan iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladoodii ka mid ahaa hadalku waa la cadeeyaa run baa lagu cadeeyaa doorashada horteeda aanu dhignay gogol degmada Ceerigaabo gobol baanu dhig oo la isugu imanaya kii yiri dib baa loo dhigayaana duri mayo kii yiri dib horaa loo soo dhigayaana duri mayo waxaanu leenahay hal isu yimaado hadlaaba heshiiye dawladana waxaanu leenahay shirar beelaha faragelinta laga daay qolo iska tiri dawladda ka dambaysan aynu ka cadayno mowqifkeena ku aadan shirka biciide haddii uu hore loo dhigay iyo haddii dib loo dhigay midna duri mayno laakiinse waxay annaga nala noqoto noogu muuqataa in dantu ku jirta in doorashada ka hor biciide isugu yimaado degmadan Ceerigaabo in aanu diyaar u nahay isu keenka biciide annaguna haddaanu nahay reer Ceerigaabo gogol baanu dhignay biciide halka ha isugu yimaado ha ku tashado arrinka halka ha ku gooyo waana doorashada ka hor marka labaad waxaanu ku baaqaynaa oo gobodii kaba dambaystii ah in shirkaas uu dhacayo doorashada ka hor gogoshiina u taalo degmada Ceerigaabo iyadoo biciide halka ku dhan yahay dawladda wax lagu yeeli maayo muslimna wax lagu yeeli maayo waxa laga shiraya danaha biciide iyo horumarka xusbiga kulmiye waxaanu leenahay shirka iyaga biciide weyne ee aan baaqsan doonin ee dhacaya doorashada ka hor haddii fargelinta laga dayn waayo kulmiya ku waxla waxaanu leenahay shirka lagu baaqay ee biciide shir baaqsanaya maaha leenahay siyaasad maaha shirka biciide وشير يديرهذا كاتشارين شير دير بالسكور رحسن هاي شركة بعيدة لجهد اللي وهرت والله سلوا فقي قلت له المشن كهذا شيء وبعيدة عرقابه صلوة بيش بصنبور أيقو أمسيين جوجشي دكتو دقمة عرقابه دور الشذا كهر سيدا أيانو أنا قلنا تاجر سنة هاي عن آد سودوين شركة بيش بعيدة شركة صو نقندونا شر عن سياسة دي كوتشرين شركة صو عن لنا دور شهر تدبر دعيا Somaliland reeraan shirnay ma jiro waxa biciide shirka loogu diiday daana waa yaabsanay waxaan leenahay war shirka biciide uu dhacayaa waayelkii odayadina gogashii waa ku dhigay tolo waxaan leenahay halkan isku keena dhibaato ma jirto waynu shiraynaa shirka biciide ee la soo ilcaamiyay waayelka hore iyo guurta hore ay ka hadashay ayaan ku taageersanahay aan reerku qaatay marka hore talabaad shirka waxaan gobolka gogashan dhigay madax dhaqameedka gobolka Sanaag ee beesha biciide ee uu hormuudka ka yahay Suldaan Ismaaciil Nuur Wacays iyo oqweeshiisa aad baan ugu taageersanahay Suldaan Ismaaciil Nuur Wacays oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa dhankiisa waxa uu si adag ugu celceliyay in shirka beeshaasi qabsanayso uu qabsoomi doono doorashada ka hor sidoo kalena waxa uu fariin adag u diray xukuumadda iyo cid kasto isku dayda inay ka soo horjeesato shirkaasi marka waxa weeye annaguna waxaanu nahay kitaabku baalgoonyaadka idlaaya degmada Sanaag biciidii joogay gobolka Sanaag degmadiisu waa deganaana talada biciidana ka goy jirtay shirka biciide yoonis waxaanu gogoshii dhignay gobolka Sanaag degmadiisa Ceerigaabo waxaanuna dhignay gogol nabadeed oo aan siyaasadaysnayn aya ka talinta biciide weey gogoshaanu fidinay muddada iyo qabanqaabadana marka biciidaanu gogosha nabadeed ugu baaqnay halaysu yimaado halkaasaanu ka jaangoynayna qabanqaabada iyo muddadiina doorashadana waa ka horeynaysa waliba dawladana waxaanu leenahay haddaanu shiro iyo haddaanu shiri weynaba idinku taageero mooye ka daaya gujagutada ama maanta deyn baxay ama daalac lay raac ama beeyaba dib uma guran biciidaan shirayn waa waxaan dhacayn biciida waa shiraya ayahiisu ka tashanaya kuwa marmabidiya wax iska oranaya ama gogashii hore ku baaqay mooyisay ka noqotay khilaafka naga gashay shirkana annaga 10kii hayna fadalo Cabdiraxmaan Axmed Star TV magaalada Ceerigaabo